muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshooyinka ku tixan deeq official kusoo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkani waxaan uga hadli doonaa ama diiradda ku saari doonaa hadal dhawaanahani gilgili qulubta Soomaaliyeed ee kasoo yeeray fanaanka lagu magacaabo Maxamed Saciid BK oo ku jeejeysay Muqdisho oo ahayd haddii ay Muqdisho rabto inay ka baxdo qaraxyada dhibaatada haddaba ha aqoonsi ha siiso ama ictiraaf ha siiso Somaliland. hadalkaasi maalmahan sutray ayaa waxa uu qabsay baraha bulshada. haddaba xalaytole BK wuxuu ka bixiyay raaligelin isagoona ummadda Soomaaliyeed ka raaligeliyay hadalkaasi gafka ahaa. marka muuqaalkeena inta badan caawa waxaa diiradda ku saari doonaa raaligelintii uu ka bixiyay ficilkii faash xumaa oo kula dhaqmay habeenkii uu show qabanayay Muqdisho. marka haddii aad ku cusub tahay subscribe like iyo share walaal ha iga baqeen oo xaasid ha noqonin. subscribe-ka ay siisaa wuxuu ii yahay niyad dhis oo wuxuu ii yahay inaan hore u socdo. marka aan u gudagalno muuqaalka. weydiinayna maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jilaayada. maxamed soo dhawow TV Universal marka hore. cabdixafiid aad baad u mahadsan tahay, allah ku casumo. wariyaha su-aal aad iyo aad u qoon badan ayuu weydiiyey. wuxuu dhahay maxaa kugu kalifay Maxamed Saciid in adigoo masrax fan fuulo in su-aalaha ceenka oo kale ah aad ka dhawaajiso. mid kale waxa uu leeyahay ma isku wadaysaa fanka iyo siyaasadda. hadalku uu kaga dhawaajiyay Maxamed Saciid BK oo ahayd Muqdisho ictiraaf ha siiso Somaliland. hadalkaasi looguma talagelin ruux fanaan ah waxaa loogu talagalay ruux siyaasi ah. ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa. waxaan cod dheer tacsi ugu dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado. tacsi amiin amiin amiin. wuxuu dhahay waxaa tacsi dheer u dirayaa dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhibaato ku gaartay qaraxii musiibadii faasho xumeed. horta maqaldo waa Allah. qofka bini'aadanka ah wuu qaldami karaa, makhluuq wuu qaldami karaa, laakiin makhluuqa qaldama waxa uu ku wanaagsan yahay inuu qaladkiisa uu gadaal saxaa. qofka qaldama waa inuu qaladkiisa gadaal saxaa. marka Maxamed Saciid BK waan u jeednaa waa uu qaldamay. haddase wuxuu ummadda Soomaaliyeed weydiisanayaa raaligelin, cafis iyo in cimaamada lagu tuuro. waa fanaan Soomaaliyeed uu qaldamay. marka fartaada xumaatay firqkaaga ma harto. waa maamaha Soomaaliyeed baa dhaheed. marka fanaanku waxaan rajaynaynaa haddii aan Soomaali nahay in qulubteena aan u wanaajino, aan cafino, cimaamadan aan saarno. qaado tacsida horta waan dirayaa ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay, idinkana waan ogahay inay jeceshiin. anagana sidoo kale wuxuu dhahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waa idin jeclahay. anaga sidoo kale waa ku jecelnahay. oo haddii aad xumaato xitaa Soomaali un baa tahay, fartaada xumaatana firqkaaga ma harto. hadda fartaa haddii ay xumaato firq ma kaaga hartaa waa maya. BK waa nin Soomaaliya haddii xumaadane Soomaalinimo jinsiyadeedu haysta anaga firq ma nooga harayo. laakiin marmarka qaar qofka siyaasadda si qaldan ayay wax u fahansiisaa. siyaasadda si qaldan ayay marmarka qaar dadku wax u fahansiisaa. idinkana waan ogahay inay jeceshiin. waa ka raaligelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raaligelinayaa. muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba. waxa uu dhahay Muqdisho xaal baan siinayaa mar labaad iyo mar koowaad. waan kaa qabnaa xaalka aadna siisay haddii aan nahay Soomaali weyn. haddii aan nahay Soomaali weyn Maxamed Saciid BK waan kaa qabnaa xaalka aadna siisay. laakiinse waxaan kula talin lahaa Maxamed Saciid BK fanaan baa tahay inaa fanaannimadaada dhowrato, sumcadeeda iyo sharafteeda waa kow. ama inaa fanaannimada iska dhaaftido arrinta siyaasadda iyo aad u dhuntaleeshaa dhanka siyaasadda aad u weecataa. ama dhanka siyaasadda waa inaa u weecataa ama inaa fanaannimadaada ku ekaataa oo wixii siyaasad ah ay soo duubduub aad laabtaa. iyadana waa qodob. marka waxaan u rajeynayaa fanaanka in uu ku waantoobo
siyaasadda iyo fanka. siyaasadda inaad isku dhex wadi miyaad doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaanin? cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay adiga iyo universal t v-ba aad baan idinku mahadnaqayaa. fanka iyo siyaasaddu biiki ahaan waa iskaga kay murgeen laakiin waan kala saaraya. anigu fanaan soomaaliyeed baan ahay muraayado geliinaan waxa uu dhahay fanka iyo siyaasadda ma isku wadaysaa mise waa kala saaraysaa? markaas ayuu wuxuu ku jawaabay fanaanka fanka iyo siyaasadda calashaan way isku milqmeen ama way isku kay jireen, laakiin hadda kadib waa kala saarayaa. fanaan soomaaliyeed baan ahay. haddii uu garwaaqsado inuu fanaan soomaaliyeed yahay, anaga maxaa nala gudboon haddii aan soomaalina inaan cafino, inaan niyadeena u furno ayaa inala gudboon. waxaan rajeynaa ruux walbo Soomaali ah inuu u calool fiyow u furo Maxamed Saciid Bike oo dhamaanahan hadal muran badan dhaliyay ka sheegay musiibadii ka dhacday Muqdisho, hadalkiisi oo maalmahan isdawareeg ka dhacay dhanka social media. marka waxaan rajeynayaa haddii aan Soomaali nahay inaan qulubta u furno, inkastoo Soomaali ay dhahday fartaada xumaata filaqaaga ma harto. marka fanaankana waa uu sheegay inuu u qaldoomay, ma qaldana waa Allah subxaanahu wa tacaala ayaa maqaldaa. qof makhluuq ah waa uu qaldoomaa. saaraya fanaan soomaaliyeed baan ahay, meel walbana waan tegayaa. socdaalkayga Yurub markaan dhammeeyo, UK aan dhammeeyo, ilaa Muqdisho waan tegayaa. labadayda show ee ugu horeeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho, qoysaskoodii. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto. anigu Soomaali waan jeclahay. waxa uu dhahay socdaalkayga Yurub markii uu dhamaado, meel walba oo geeyga Soomaaliyeed waan tegayaa. qof Soomaaliya geeygi dhul walba meel walba Soomaali lagama xigo. hadalka kale haddii aan reer Muqdisho naga farxiyay waxa ay tahay, waxa uu dhahay laba show ayaan ku qabanayaa magaalada Muqdisho caasimadda Muqdisho. laba show ayaan ku qabanayaa. labada show waxaan ugu taakuleenayaa ama aan ku caawinayaa walaalaheeni musiibadii foosha xumeed ee ku habsatay ayaan ku caawinayaa. waa hadal aan Maxamed Saciid Bike hadda inaga kasbanayo. wuxuu dhahay Soomaali waa jeclahay, meel walba Soomaali joogto waa jeclahay, dadkayga Soomaali waa jeclahay. anaga sidaa inoo jeceshahay ka daran anaga ku jecel, anaga ku jecel kal ilaab ayaa ku sii jecel. Maxamed Saciid Bike waa inuu raalligeliyo haddii aan Soomaali nahay, waana fanaankeena Soomaaliyeed. fanaan Soomaaliyeed inuu yahay Maxamed Saciid Bike caawa afkiisa ayuu ka sheegtay muuqaalkii uu duwaayay. marka waxaan rajeynayaa Maxamed Saciid Bike hal raayaan ku dursanayaa. fanaan Soomaaliyeed baa tahay, arrinta siyaasadda iyo fanka kala saar. waa qodob. ama siyaasadda dhankeeda u jaranjeer oo fanaannimada buuggeeda laab, waa qodob. ama fanaannimada dhankeeda usoo jileec oo dhanka siyaasadda buuggeeda laab, waa qodob kale. marka waxaan rajeynayaa Maxamed Saciid Bike inuu ka waantoobo, walow hadalkaasi uu dhahay darteedii magaalada Muqdisho gabi ahaanba laga joojiyay dhegeysiga heesihiisa. Muqdisho waa dareemi kartaa waxa aad loo isticmaalaa bajaaj, mooto bajaajta waxaa laga joojiyey Maxamed Saciid Bike heesihiisa, idaacadaha sidoo kale, istuudiyaasha sidoo kale. marka intaasoo malaayiin oo fani ku ah inay kaa lumaan waxay adiga kuu tahay sumcad daro. intaasoo malaayiin inay kaa lumaan adigoo fanaan weyn ah waxay kuu tahay sumcad daro. marka Maxamed Saciid Bike hadda uu ka waantoobay qaladkii oo galay. marka waxaan leeyahay hubsiina hal baa la siistaa. hadda kadib wax walba aad falaysa ama aad samaynayso, waxaan ku leeyahay Maxamed Saciid Bike ka fiirso. anaga hadda waan kuu calool fiyowna, wax codad lahay kuma qabno. codad ma naqaan anaga hadda aan nahay alxamar, codad ma naqaan. laakiin waxaan ku leenahay arrimahan isku kalifaaqsan kala saar oo kala bixi. muuqaalkayga caawa intaana kasoo gagaweynayaa. muuqaalka waxaan diiradda ku saareynay raaligelintii Maxamed Saciid Bike ee ficilkii foosh xumaa ee dhawaan maalmahani isdabayaacay social media. daawade please, haddii aad Soomaalinimo igu caawinayso igu caawi. hal like ay siisaa, niyadda ayay ii dhisaysaa. hal subscribe ay siisaa, hiil buu ii yahay hiil. sheerta iyo commentigana ha iga baqiilin oo xaasta ha noqonin. qof walba horumar gaara
asxaabtiisa iyo bulshadiisa ayaan horumar gaarsiiyo marka waxaan rajaynayaa inaad horumar i gaarsiin doontaan